سيلا وسطك عدو تحاوش ولا وسطك صباح ولا سويرو بابا انت توقف بسم الله الرحمن الرحيم إن والله هذا يقدر سودي بتي SARC لرهده فديودي هاي مقالة لندن يودن كإنجليزكا إسلام كانوا مدحكي هاي محمود يدخل أما جرمان كوي هاي وحا ديقدا inoo soo dhiibeen si toosan u gaarsiinay dadkii loogu talagalay ee dhibanayaasha ahaa sidaan hore idinku sheegnay deeqda dadka waxa ugu qaybinay in xeer jajab wax liiraado ama siyaabo hooso sababtoo dadku baahida ayaa badneed waxa la soo dhiibana wax yar ay ahaayeen marka deeqdan waa deeqdii ugu horeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan la soo gaarsiiyo dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Beledweyne waxa jira dhibaatooyin kaleete oo ay dadku u baahan yihiin in laga gacan siiyo marka walaalaha muxsiniinta ee jecel sadaqada iyo qeyrka waxaan ugu baaqaynaa in dadkan ay kaalmeeyaan xaaladdu way adag tahay dadka xilliga aan deeqda soo gaarsiinay waxa jirtay in dadka lacagihii been abuurka ah lagu mamnuucay isla markaana ay jeebabka ku haysteen qof kasta oo dhibanaana uu ilaa iyo 500 kun oo shilin Soomaaliya gurgiisa ay tiilay dan uusan waxba ku gadan karin marka sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha caalamka inay dadkani u soo gargaaraan maanta sida deeqdan loogu soo gaarsiiyay mid lamid inay u soo gaarsiiyaan maadaama dhibaatadu ay badan tahay mana la soo koobi karo hal filin iyo laba filin iyo saddex sawir lagu soo koobi karo xaaladdu way mid qalafsan marka sida aad noogu soo dhiibteen waxaan u gaarsiinaa dadkii loogu talagalay ee dhibanayaasha ahaa waa mahadsantii deeqdan waxa ay ka kooban tahay bariis iyo saliid in waxana soo dhiibay NGO-ga la yiraahdo SRC ee fadhigiisu yahay magaalada London wadanka Ingiriiska oo Jarmalkana ka yahay Maxamuud Diiriye dhuxul isla markaana ugu talagalay dadkan walaalihiisa reer Beledweyne in lagu caawiyo maadaama dhibaato badan dadkan ay ku hayso guryahooda in dadka aan gaarsiinay waa laba qayb waxaan kala gaarsiinay 100 qoys iyo 100 qoys waxaan kala gaarsiinay xero la yiraahdo Doomey iyo xerada Nasiib inkastoo dhibaataduna ay badan tahay labada xero oo kala gaarsiinay waxaan u siinay 100 qoys oo Nasiib ah iyo 100 qoys oo Doomey ah marka baahidana intaasi ma ahan waa ay ka badan tahay du'aayo waliyare farax inta Allah nasiib barta nasiib magaalo tuuray afurlaangahayn afurana niishaani alxamdulillah alshukr almulku lillah farax tagna intii niishaantina intagan abihi ku badi magan Allah weel jira akay hooyo ويا أنا بتاعي مشجعي تدان بنانا هاتوك تداي بنانا هاتوك تداي هندوشون كهين هاتوك تدواي أو كتحور معان أورا تحور معان تاتك سومناي أحسن تجتاك الله ما تنتين ويا بريد يونا دواي تريد أنا نسي ما تنتين إلهي كل شيء مرحبا أنا كبرت النصيب داق السوقر وكفر حسنا بقول ما هذا نوع علنا أنت نوكنت أنت نصيب أنت نصور كنت ما هذا نوع علنا بقول أفرك أو نوعيه وأدبر أغفر حسنا عوض أفرك إن هذا ملك مين من النود يرسيه هي داقد اللي سوق رسيم هاي تها مركا داقد اللي سوق رسيم بريس إسليت
هي مجران دقة هور اللي يسوق جرسي أنت اللي جود جري بش رمضان مية مجران رمضان يكون حجان نرم سوبيسين وحنا هي مركز ضدك يسود دي محا وجود عيني سايقة وحن وجود عينينا وحس دونكي أن قرب وجعل إنزلايسي حسين مقالة توري حاليا نسيبي دون سوقنا قعنت كوهايا marka SRC aad iyo aad u madcelinayna iyo xaji dhuxul waasagna aad iyo aad maartu soo xil saaray iyo makraan oo iyo maxay ahayd wiilish kulmidka oo ayagana gaarsiiyay markay dhibaatadu ay arkeen la gudboonaatay in ay gacan ka geystaan cidii noo soo survey samaysay iyo cidii noo soo dhiibtay boqolkiiba horta u madcelinayna dadkan waa dadkiini dadka xirada degan waa 922 qoys 100 qoys oo liidan ayaa laga xusay waxaan leenahay ku kala inay jidka ku soo juraan markay arkaan dhuxul iyo dadka jariya walaalahay markay sawirada arkaan in ay gacan dhiiran ka geysan doonaan dadkan waxa isku tagtay dhibaato aad u culus ayagoo gobolka amaan soo raacay oo soo qulqulay dhowr goobood ka kala yimid kuwii soo xoolo beelay oo gobolka amaan soo raacay kuwii gobolada kale ka yimid ee gobolka amaan soo raacay biyaha webiga wax kala ma haystaan lacagtii ku dhacday oo risk kala noqotay markay yimaadeen dad aan malaas aqoonin oo dhardhaq aqoonin oo reer baadiya oo reer guuray ah oo neef in raacdaan ay keensan maalan wax kale aan aqoonin dadkii malaas leedahay iyo xamaaleydi waa iyaga lacagtii cadad ay ku dhacday oo ilmo dad ku shidan waay marka aad iyo aadan ugu mahadcelinayna deeqdan deeq uma artay la soo koobi kara ma waa deeq farxad leh boqolkaas qoys oo la bixiyay hatta 600 qoys ay dad ku soo shidan kartaa ninkii xal Soomaaliya cawd afuraysan walwalka waa ka dhacay annagana waa u mahadcelinayna walaalahood kalena ku daydaana inja ogaana khayr Allah siiyo waa u mahadcelinayna boqolkiiba boqol ha ku daydo sawirada marka uu arko dadka wajidooda dhibaatada ka muuqato mid aan qaray imid adu labadu ha shaqaystaan waana u ducooynayna waana maasiin nagala gaarsiyo deeq kale ma jirtaa oo la keenay Ramadaan maya waa farxad nooga horeyso maanta waxay hore idinku sheegeen aniga horjooga waxay waa sheega wax deeq oo nala soo gaarsiin ma jiraan wax qof shakhsigiis oo sadaqo u dhiibtay moogiye marka waa deeqda nooga horeysa leenahay ilaa bilow iyo dhamaad bisha Ramadaan oo gabaabsi ah laba maalmood iyo wax la jiray ka dhimantaa marka u madcelinayna in joogaas xajbi xun waxnu sheegaynaa inuu gacan kala qaado 922 qoys boqol dilgis waa dareemi kartaa dadku waa 3 qaanadood baahida qaanad xoogaa dhexdhexaad iyo mid ku xigta waay tii geerida u ekeedaan siin maanta dadkii geerida looga yaabanayo caawa ama u dhintaa la hayaa jifka laga toosiyo aad iyo aad cibaado fiican Allah idin siiyo khayr Allah idin kugu bedela shaydaanka Allah idin ka qabto walaalihiina soo ogaada waan idin waxaan boorkii qabalahayn be taaga baalka way sax dadkii hawshan